بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جود هامبا دقستيال halkani waa raadiyo codka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Finland wartanaani toddobaad kasta waxaanu hawada soo galnaa maalinimada Axadda saacadu marka ay tahay 12 ilaa iyo 1 duhurnimo waxaana naga dhageysataan mowjadaha dharkoodu yahay 100.3 la radio balse aan ku hormaro waraysiga aan la yeeshay gudoomiyaha ururka midnimada Soomaaliyeed Cabdirashiid Cawad Diriye injineer ma maqlaysaa maxamed si fiican ku maqlaya injineer waxaan ka war helay inaad qabanaysaan ururka adigu aad u tahay gudoomiyaha Soomaali Liito shir ku saabsan seminar marka shirkaasi muxuu yahay baad isleedahay maxamed waad maasantahay waraysigaaga waxaan jecelahay marka hore inaan ka mahadceliyo runtii shaqada fiican ee aad u haysaan ummadda ama jaaliyadda qaybaheeda kala duwan waan idinka hambalyeynaa runtii horumarka weyn aad wadaan maxamed haddaan u gudbo su-aashaada maxamed labada bisha afraad waxaa dhici doona haddii ilahay ka dhigo seminaarkaasi maxamed wuxuu ku saabsan yahay bal sidii waxaa soo qabanqaabiyey ururka midnimada Soomaaliyeed wuxuu ku saabsan yahay bal sidii bulshada waddanka degan ama ururada ka jira waddanka sida ay uga qayb qaadan lahaayeen in bulshadu ay la qabsato waddankan waxaana mashruucan maalgeliyey oo qayb ka yahay asalkiisii hore wasaaradda arrimaha gudaha laakiin wasaaradda hadeer waxay qaybtii la qabsiga ama kutubtumiska waxay hadeer u wareegtay qaybta wasaaradda shaqada iyaga maxamed wuxuu ku saabsan markaa Soomaali Liito waxay furtay qayb mashruucaas qayb ka ah oo ah info ama meel dadka laga hago marka mashruucaas ayuu qayb ka yahay waxaa lagu talagalay in bal ururadu ay ka qayb qaataan bal sidii ay dadkooda ama dadka waddankooda ay matalayaan sidii waddanka ay ula qabsan lahaayeen oo dhinacyo kala duwan taabanaysa beri hore maxamed waxa uu ku wajahnaan jiray in hay'ado kala duwan ama dawliga ay mashaariicda noocaas kala fuliyaan laakiin haddeer waxaa muuqata in ururada laftigoodu ay awood u leeyihiin ama laga qaybgeliyo inay ka qayb qaataan horumarinta dadka ajaanibka iyo qaybta la qabsiga inta ay sidii waddanka ula qabsan lahaayeen waa gartay gudoomiye waxaan filayaa seminaarkaasi waa seminar aad iyo aad yani u wanaagsan oo loogu talagalay dadka Soomaalida inay ka faa'iideystaan marka faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay adoo soo koobaya wax ma nooga sheegi kartaa maxamed faa'iidooyinka xambaarsan yahay waxa weeye waxaa imanaya dad madaxa oo sare oo kala duwan oo ka socda tusaale ahaan wasaaradda shaqada qayb gabadha ama qofka qof ka haysta matalan ba qaybta ajaanibka ee Helsinki oo ah maaha mutakhassis la yiraahdo waxaa imanaya xafiiska shaqada iyana dad baa ka imanaya waxaa kaloo imanaya ururo kala duwan oo ururada kala duwan ee ka jira waddanka halkaas muhiimadda ugu weyn waxa weeye bal in laga naqaasho kow caqabadaha oo ku wajahayaa mashruucan oo ah xagga dhalinyarada bal caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waddanka ku cusub iyo kuwa dee adigu horumar way ka soo waaya xagga nolosha oo kale tusaale ahaan sidii laftooda loo caawin lahaa dumarka ama kota ay waxay yidhaahdaan ee guriga jooga sidii ay waddanka ula qabsan lahaayeen marka halkan waxaa kasoo baxaysa faa'iido fara badan oo ah in la iswaraysto oo dadka hay'adaha kala duwan matalayana soo bandhigaan bal aragtida arrinta ku wajahan dadka Soomaalida soo bandhigaan halka la iswaraysto kadibna caqabadihii jiray ama jiri kara meel la saaro oo markaa ama xagga shaqo ha noqoto ama xagga waxbarasho ha noqoto ama dhinac walba ha noqoto halkaa waxaa kasoo baxaysa markaa result fiican oo ku wajahan dadka Soomaaliyeed sidii matalanba loogu heli lahaa dhalinyaradaas kale xagga shaqada oo kale ama iskuulada oo kale ama loo hagi lahaa wuxuu xambaarsan yahay maxamed mashruuca seminaarkani faa'iidooyinka soo koobi karan waa gartay waxaan filayaa in shirkaas uu qabso labada bisha marka goob cayiman oo aad dadka ku wargelinaysa ku dhageysanaya raadiyo codka dhalinyarada Soomaaliya ka dhageysanaya ma jirtaa maxamed wuxuu ka dhacayaa basila qaybta maktabada basila qaybta shirka ayuu ka dhacayaa saacaduna waxa weeye 12 doornimo ilaa 4 galabnimo ayuu soconaya waa gartay ma jiraan dad ururo kale oo ururada memberka ka ah Soomaali Liito oo aad ku casuunteen ama aad isleedihiin hadda waad uga faa'iideysanaysaan raadiyaha codka dhalinyarada Soomaaliyeed si ay
kulankaasi uga soo qayb galaan. dabcan maxamed waxaa weeye ururadaas oo dhan waa la casimayaa casimadiina waa la diray hay-adaha dawliga iyo kuwaan dawliga ahaynba waa lagu casimay runtii dad kala duwan oo ka kala socda hay-ado kala duwan oo waddanka jirana waa imanayaan oo iyagu laftooda dhegeysanaya oo halkaa laftigooda ay rabaan bal wixii halka kasoo baxana ay la socdaan marka dabcan ururada dhan waa lagu casimay maxamed waana insha allah waana imanayaan hay-adaha dawladuna waa imanayaan iyo kuwan dawliga ahaynba dad kale oo doonaya dhegeystaan oo mashruucan ka faa'iidaystaanna way imanayaan oo goobta iyana goobjaba ku yihiin insha allah sida aan la soconno ururka midnimada soomaaliyeed ee Soomaaliliito waxa uu qaabilsan yahay in shacabka Soomaaliyeed ee reer Finland uu u shaqeeyo waxaad leedihiin xafiis marka ugu dambeyntii su'aalahan ku weydiinayo maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya reer Finland ururka midnimada Soomaaliyeed ee Finland maxaad ugu baaqaysaa maxamed runtii waxaan ugu baaqaynaa marka hore waxaan u rajeynayaa runtii bulshada Soomaaliyeed ee Finland ku dhaqan wadajir iyo in gacmaha la isqabsado runtii horumarka iyo ifalada hadeer fiican ee ururka hadeer ku tallaabsadeen runtii de in gacan laga siiyo oo runtii ururkuna waxaa ma qaban karo haddaan dadkiisa gacan ka helin adeega maxamed ka socda dadkuna inay ka faa'iidaystaan adeegyada kala duwan ee ka socda xafiiska waa furan yahay oo dad shaqaale joogtaan loo helay ilaa iyo 9 ilaa 4 geed uu furan yahay oo gobor finisha iyo Wilson dad ka shaqeeya iyo gobor kale yana Soomaaliyeed mashruuc hadeer seminarka soo dhacay labada bisha Afriil lagu shaqaaleysiiyay waxay sameeyeen dadkaasi adeeg kala duwan sameeyaan qofku ama xaq loo yar noqoto ama xaq midnaba qofkii doonayay in la hago oo kale ha noqoto xagga dumarka laftigooda waxa ka socda qayb midnaba dumarka aqama ka socota dhalinyarada saasi leeg marka fursadaha badan ee ka jira inkastoo dad badan hadda xafiiska lagu soo xidhmay waa loo yimaado oo mashquul yahay haddana waxa weeye dadku ka wada faa'iideystaan marka in laga faa'iideysto muxuu ahaa adeegyada kala duwan ururku inuu bixiyo in laga faa'iideystaan runtii aad ugu baaqaya aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha ururka midnimada Soomaaliyeed Soomaalida Cabdulrashiid Cawad Jiriya ayuu ahaa waan waraysi la yeeshay isagoo inoo sheegay shirka labada bisha afraad ka dhici doona xarunta maktabada ee Basila aad baad u mahadsan tahay Cabdulrashiid aad baad u mahadsan